anigu kuma jecli iska keen nabadgeli waa aad idib daran tahay akhlaaqna ma lihid taleefankaygan ii nabadgeli maxaad igu maqashay maxaad igu aragtay oo maxaad iga tabanaysaa hadaladaasoo idil waa channelku waxaan kusoo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqa ah falogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القارقة ولاشين زيو إذن الله أنا وعافمات خوامل والبدونيد أكي جبتم وحا إدري جينا إنات إي عافمات قبطان سودة دبادة ومركلة إيو فيديو عصب فيديو كان أيامانتا وحا إنو صار ميسكا برنامجكا إذن هايو أيو وحا أو يهاي إن آن فلنقيانو محمد عبد العزيز ويل شاقي مقعيسا إن أو يهاي محمد عبد العزيز أيو وحو لي وحان جعلاضي قبار 15 sano iga weyn waa zio oo idin leh bariyahan dambo sida aawad ogtiin baraha bulshada ayaa waxaaba ka dilaacday booqisooyin oo hadana anay hore igu soo dhacday gabaraan jeclaa jiriyaa tahriibtay gabaraan jeclaa jiriyaan waayay gabaraan jeclaa jiriyaa laga guursaday gabaraan jeclaa jiri waa la aroos waa la soo furay intaas waxa isla dhaafayaan ragga hadana hadii aad u fiirsateen iyo hadii kale ma aqaaneen badana qisooyinka waxaa weerar lagu yahay gabdhaha gabar hebel ay ku dhacday gabar hebel ay ku dhacday maadaama dadka soo tabiyo qisooyinka ay badankooda dumarka waxa qabsaday oo kaliya ka hadlaan ay raggi waxayba jeclaysteen in ay afka furtaan kadibna jawaadkoodii wixii ku jiro oo dhan ay banaanka keenaan aan dib ugu soo laabano wiilkan barnaamijka inta uu ku sii socdo waxaan magaciisa ku ekeen doonaa maxamed ama maxamed yare maadaama gabadh uu jeclaa ay ka weyneed asigan uu ahaa wiil da'yar ilaa ay hadda uu yar yahay la socda maxamed wuxuu leeyahay sida tan markii mustalaaf markii ay qabatay waxay tiri way idab daran tahay baaxan tahay afeegada kala aan wax yar dib u soo laabano qisadan waxaa baahiyay Ridwaan Isaaq Ridwaan sida aad ugu barateen ama aad ku taqaaniin qisooyin iyo tijaabi jaceylkaaga ninkaaga yacni meelaha yacni duduleelada kalsoon darada ka jirto hadii cailooyinka dhankooda xataa la dhaho dhalinyaro badan ayaan daawadaa dhalinyarta aan daawado ayuu Ridwaan ka mid yahay qisadan waxaan jeclaystay goor hore in aan idin soo gudbiyo maadaama ay meel iga taabatay aan rabo in aan xoogaa wiilkaas aan waxbuu tabanayaa tabashadaas ayaan waxaan rabaa inaan xoogaa ugu falceliyo in yarna aan sii falanqeeno ra'yigeena aan ku dadarsano ilaa aan markaas waxa ay qof markaas oo cusub ahay sababta miimira cusub waa aragtay oo cusub yaa wax ugu hore oo ku shub u qabana Soomaan wallahi raka xariifin waa qaasatan wiilashii yar kula meemiriga markuu cusub yaa waxa kool ugu shubo qabana maxaa wax kale ma qabanaa miya wax walba oo qabana meesha da memory keentay memory ila oo ka buuxsamo okay wuxuu yiri qisadan waxaan dhihi karaa qisada nolosheeda ugu weyneed laakiin maxamed waxaan leenahay wili waa yar tahay taa aa soo aragtay kuwa kalena ee ku sii dambeeya inta adduunka ay sii joogtay dunida dhan ayaa waxayba tahay wada qiso taas marka aad ka soo baxday intaan hadii aad reereen iyo aad ku jirtay kuwa kalena ee ku sii dambeeyaan because dunida qiso kama dhamaato kadibna la dhahay cunugaas ka yar intuu ku geenaa cunugaas ka yar maxuu ku falee qof ku dhaqi karaa heli kartaa wuxuu yiri waxaan ka shaqeynayay goob caafimaad ama farmashiye sida ay u taqaaneen kadib ninkan gabar ayuu jeclaaday gabadhaas ayaa waxay ahayd gabdhaha galab walba meeshaas imaado ama kaniin ha loo soo diro ama sheeka iska imaado adii qof buu ka helay qoftii laakiinse waa qof ka weyn ha iloobina ilaa ay hadda maadaama oo weynaad asi xasuusan yahay anagana waan ku wadi doonaa xiriirna malihi ay u tiri waliba xataa waa ku sii celiyay xitaa waxaan dhahay adiga xiriir miyaa leedahay dhahay kadib waxay igu jawaabtay wax xiriir oo maanta aniga qaas aniga aan leeyahay horta malahan gabadhan markuu ka helay waa tan uu badaf iyo halaf xiriir ma leedahay adiga dhan waa ka heshay xiriirkeeda iyo maxaa ka galay fudeed badnida maxamed fudeed badnida wuxuu taagay maadaama aan xiriirkeeda weydiyo wax igu sababay in xiriirkeeda weydiyo waxay tahay gabadhan waa gabar iga weyn niyo gabar facaada ma weyse
maadaama aaba weysi oo dooqaaga oo galay gabadhan weyn aniga si ahaan waxaan ku leeyahay horta marka koowaad adaa jaceylka sheegtay Soomahan dumarka sidoodaba way ixtiraam badan yihiin haday nin jecel yihiin iyo haday ninka la socdaan badan dad waxay dhihi doonaan ha khiyaanooloshin waaye no adigoo lagu ixtiraamayo ayaa jaceylkii laga ogolaaday mar alla markay jaceylkii ka ogolaatay ayuu gurigii markay tagtay dib isku xisaabtantay xanuunkaagii dhanan ku soo gabagabeena adiga qodobta kugu ahaado ama ha kugu taagnaado ama aad dhahdaa nafsiga jira iyo waxaas no gabadhan maadaama adiga horteeda taagan tahay qalbigaaga way dhaabici weyso wuxuu ku tiri no xiriir ma lihi waxaasne waxay tahay in ay ku ixtiraamaysay ixtiraamka kadib maadaama cunug yar tahay haddana farmashi ka shaqeeyo gabadh in ay tahay gabar mustaqbal leh maxaa lagu sameeyay maxaa lagu fiirsanayo saarun ilka wala kala cadeeyaa mugtay run ilka waa la cadeeyaa run ilka waa la kala cadeeyaa kula see loo kala cadeeyaa okay ka soco maxamed wuxuu taagan yahay gabadhii wajig waxaan ku dhahay waa ka helay okay akeeshid maxumo laakiinse ra'yigaaga ugu dambeeyay ma in aad gabadha ka heshaa oo galab walba iska sii fiirsataa oo jaceylkaba ma in yacni تلفون لو هاتلو لسكو إمادو لك العرلة ميا يعني ويش كلمة ترميا قف مركز عن فيري دقدي قف يقوين يهد وين أنت عدك وقف أنت أبو وين أنت الشيء عدك وقف أنت إيه عشان يتون كوينين عشان تو كويني ذا معقولة كتب صوتك ويبكاوين دوابة شعلاتي سماحن شيء كذي سويه كسو جبجبي ولا يقدري قبلي ويل أسحبتيسا أيا إني أطيين قبلي كذا بشقيين هرت الصومالي حيل هذا جعل حاسد موايو ما كي جعل حاسد موايو أنا ودور تاجن عن كصوتكنا أرنت ويل كان كوقفلن أو إلا هي هذا كده حجوحي سوي تاعي قبل إيه سقلد لو فهنسية قبل إيه أيام سقلد لو فهنسية ما دام سقلد لو فهنسية إن وما تقوم كسر علي وإيجوينت وإنت محمد وحان لي هاي هورتا جعل وين ما يقانو وتنكوبات تنلبات قبل كرتيد كجعلاتي ما أعضلهن ما دام ضد هذا الكولصوم مخشي تنسدحات wuxuu yiri mar ala markii wiil isoo wacay aan ugu kor imid aan wacay waa sheekiska ciyaaleed ma fahantay wiilkii waa aan weydii waaye waxay u tahay ama waxay isku yihiin yani jaceelkeeda isii in la diraandiri intaas oo dhan kulay ma dafireeno oo jaceelkaas uu kugu dhacay Soomahan laakiin adigan ciyaalnima ku qaaday oo booski xiligaas yani aqoon iyo karti iyo wax fahan oo maanta aan leedahay waqtigaas ma aadan lahayn markii taas aan ka soo tagno gabadha ku soo hartay gabadhan ma dhaheeno nafsiga ka gashayo waasaano uu ka soo baxayo sababtoo ah gabadha marka koowaad horta waa gabar mustaqbal rabto tan labaad waxa ogaataa sida aad lagu dirdirayay oo aad asxaab u leedahay inay ayadaba asxaab u leedahay kadibna la dhahay cunugaas ka yar intuu ku geenaa cunugaas ka yar maxuu ku falee qof ku dhaqi karaa heli kartaa ayadaba yani culeyska adiga lagu saaray aktarkiisa in la saaray macquul saasay tahay ragga iyo dumarka yani dumarka gursi oo sababtoo ah gabadhan nin diyaarsan oo wixiisa heesto markay aragto way guursadeen laakiin adiga is diyaarintaadaaba koob iyo laba iyo kala bar ahayn asxaabteeda qaaliga qisadan oo dhameystiran haddii aad jeclaysatay ridwaan ka soo fiirso intaan ayaan jeclaystay in aan la wadaago haddii aad hore ila joogto oo mahadsantahay daawashada video haddaad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelkaaga subscribe dheh furo gambalelka si uu ku soo gaaro wax walba ee soo dhigto walaasha ziyo kule dunidu waa wax yar ee gaaban is xisaab inta aan u xisaabin ka hor bye bye